السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واللباح أما اللباحد كسو هيرا هربد هيغا تاوبركا انجينير هذا مستقبل كبر علمي كمبيوتر goob kasta iyo goor kasta oo heli karta aalada wax ku baratay internet joogta adoo booqanaya hurbad.com uma adraaka hurbad waa madal waxbarasho ee laga barto cilmiga IT-ga qaybihiisa kala duwan ee lagugu barayo laguguna hagarbaxayo luqadda afka hooye af Soomaaliga af qalaad aqoontu maya waaye hal mar inta ideh afkaaga hooye wax ku baro af qalaad waxba lagu ma bartee waa barnaamijkeeni imtixaanaha tiknoolajiyada waa TT oo soo laabtay oo hawada ka maqnaa muddo usbuuciyo ah soo dhawaada intii noo xiiso nagu xirneed oo rukunka ka ahayd waan soo laabanay aad baan idin salaameynaa barnaamijkan waa barnaamij hadaad ku cusub tahay aan ku falanqeyno tiknoolajiyada iyo heerarka ay dunida marayso saan uga daba tagno ma ogtahay in la daalaco deegaanada digital la dagay ila soco xalqadan ama qaybtan waxaan ku falanqeynaynaa kombiyuutarada aan isticmaalno maalin walba ama modern computers sida ay u shaqeeyaan kombiyuutarka asalkiisa saa ogtahay waa xisaab marka sidoo kombiyuutarku u shaqeeyaa ayaan ku baranaynaa qaybtan waxayna qayb ka tahay qaybteeni computer science-ka soo dhawaaw libaax ama libaaxad okay waxaad isweydii kartaa war qalab ka samaysan koronto ee battery ama ku shaqeynaya koronto dab oo ka qaadanayo toos haduu yahay laptop battery ku shaqeeya haduu yahay computer kalena toos uga qaata darbige sidoo marka xogta ku soo gudbiya ayaad isweydii kartaa computerku waa machine loogu talagalay in uu xisaab iyo lambaro inta isdaba mariyo manipulation waa isdaba marin inta isku dhufsado kala jarto isku xisaabsado soo qiyaasay logic kala soo dhexbaxo marka kadib uu sameeyo to compute na waxay ka timid waa in computerku xisaab ku shaqeeya computer asalkiisu waa xisaab xarfaha calaamadaha sida kuwa ganacsiga kuwa adka kuwa taantusyada iyo wixii lamida iyo codadka iyo masawirada waxaasoo dhan waxa loo soo bandhigaa si xisaab ahaana ayadoo la adeegsanayo base 2 binary numbers oo maxay ka kooban yihiin waa eber iyo hal iyo eber qof ay macna u sameynaysa male hal iyo eber ilaa uu qofku fahamsan yahay xisaabtaani si u shaqeydo marka dadka scientistayaasha ee kombiyuutarada soo alifa algoritmkooda keena logicooda keena xisaabta iyo waxay ku salaysan yihiin keena machine code-ka soo qora ayaa mar walba waxay keenaan xeelad kombiyuutarka oo ku soo bandhigi karo xogta iyo data laga rabo soo ula shaqeeyo si ay dadku fahmi karaan kombiyuutarku wuxuu ku shaqeeyaa xisaab waa midna waxa la yiraahdaa binary ee laba ka kooban ee eber iyo hal midda kalena waxa loo yaqaanaa base 16 ee hexadecimal dadku sida badan waxay yaqaanaan binary numberska oo mid ay ogyihiin inay dhahay dib waxa yeelay lambaradu aad bay u dheeraanayaan mar walba xarfu ay bataan halkii xarfa waxa laga yaabaa inuu u baahan yahay 8 bit of binary ama 8 number oo binary ho eber hal eber inuu yahay ay laga yaabaa marka hexadecimalku wuxuu sahlay in lambaro badan oo binary hal mar la isku keeno hal xaraf oo kale ama dhowr xaraf oo kale waxayna ku salaysan tahay 16 maxaa laga keenay 16 marka la joogo digit waa hal far ama hal xaraf eber ilaa 9 waa 10 number Soomahan ebertu yeesan kula noqon wax kale ebertu waa ayaduba waa digit marka eber ilaa 9 waa 10 hadhiin maaha 10 eberti la xisaabiye hal ilaa 9 eber ilaa 9 waa 10 inta ii qabo markii 10 la marayo ayuu 10 wuxuu isku bedelaa a b waa 11 c waa 12 d waa 13 e waa 14 f na waa 15 marka a to f marka la leeyahay halkaas ay ka timid marka 0 to 15 oo f waa 16 digit 0 da hayloobin ila soco marka 24 bit number hadii la rabo in la qoro ayadoo marka la qeexayo kalarada ay yeelanayso midabka shaashadu ama hexadecimalka pixelska ku soo baxayso waxa loo qori karaa in la soo gaabiyo 24 bitkii ama 24 digitkii in laga dhigo 6 hexadecimal digits in laga dhigo ee marka loo soo gaabiyo hex si looga dhigo shaqada uu qabanayo qofka programmerka mid sahlan tusaale lambaradani ffc0 ff waxay u taagan tahay midabkaas badana hexadecimalka markii la doonayo in xarfo binary la soo gaabiyo ayaa la adeegsadaa colorinka computing programming hadaa baranayso hexadecimal ina barato soo u shaqeeyo iyo codekeeda ina xifdisantahay muhiimaha qaacidadeeda inaad fahamsantahay muhiima f maxay u taagan tahay waa 15 xaraf ila soco c maxay u taagan tahay waa inaad fahamsantahay waa a b c waxay u taagan tahay waa lambarkii 12aad ila soco waka maxay yeelay a waa 10 b waxaan ku iri waa 11 2 alifna waa c ila soco marka lambarkan hadda 8 a e 1 ff wuxuu u taagan yahay waa midabkaas
marka midabadan iyo hexadecimalka 24 bit ahaalaha ee loo soo gaabiyay 6 digitka ayaa waxay ku tusaysaa in hal xaraf ee hexadecimal kamida ama hal lambar oo shaqo badan u qabanayo markii lagu dhufo lambaro ila soco hexadecimal iyo binary ayaa computerku oo ku shaqeeya computerka asalkiisu waa xisaab inta hadaa fahamto wax badan baa ku bilaaban modern computer siday compute sameeyaan xisaabta ay u soo bandhigaan ayna midabka iyo muuqaalka iyo maqalka iyo masawirka iyo qoraalka say u soo bandhigaan wali ku jirnaahe kaba soo qaad computerka waxa rabtaa inuu ku soo bandhigo image ee ah masawirkan oo kale ee flowerka ah ama ubaxa ah computer screenku waxa ay ka kooban tahay godad yar yar ee loo yaqaano pixels ee masawir ka soo baxayo kuwaasoo nal shidaya waxayna u samaysan yihiin sida afar gees oo kale nalaa ka soo baxa midab leh midabkaasi waxaa loo cabiraa wax loo yaqaana pixelkaasi badanaa wuxuu noqon karaa midab cadaana ayuu noqon karaa balse marmarka qaarkood ayaa waxaa lagu saleeyaa RGB wax la yiraahdo ee ah red iyo green iyo blue ama black ila socotay tahaba iyo blue marka RGB lightska oo ah red iyo green iyo blue iyo midabada kale cadaanka maxaa yeelay black looma baahna markii laga hadlayo image waxa laga hadlayaa waa kuwa markii la isku dhafo marna pinkiga yellowga greenka greyga noqonaya weeye waa saddexdan midab ee ah casaanka ama red greenka ama cagaar blue ka u taqaanba iyo blue iyo white oo la isku daray ayaa midabada dhan ee pixelska screenka ay ka koobmaan marka waxa jira lagu yiri kalar kale la isku daray ayaa ka abuurma saddexdan kalar blackuna asagu mar walba waa absent ee ah mid maqan markii laga hadlayo nal haduu yimaado madowgu waa baxaa ila soco each color marka midab walba waxa laga sameeyay saddexda value ee ah u fiirso 1111 0000 waka 0000 ayaduna marka red iyo green saddexdaas midab si la isku daro ee loo soo saaro violet colorkan waxa la isticmaalay waa RGB lighting oo binary lagu saleeyay ayadoo marka binarygiisi halka laga soo saarayo tusaale qoraalkan fiiri words ee xarfo s hadii loo qoro s kaligeed in loo qoro waxay u baahan tahay 8 digit binary waa text kaliya hal xaraf oo loo qoray marka xarafkaani ama xarfahani ama characteriska waxa loo soo bandhigaa si standard ah set of binary numbers operating systemka ama computerka OS kiisa waa softwareka computerka uu ka maarmayso u shaqeeyo waxay isku daydaa inay u fasirato binary numberka loo soo gudbiyay ayadoo markaa raacaysa pattern of pixels on the screen ayadoo markaa raacaysa xarfaha iyo midabka iyo qaab dhismeedka u dhisan yahay eraygu iyo sida uu qoran yahay ayadoo markaa pixelska intuu baaxadda ka qaadanayo shaashada fiirinaysa ayay markaa cabiraysa programada sida word processorka sida Microsoft Word oo kale ama web browserska sida Google Chrome oo kale waxay wataan codad ay ku ogaadaan the pattern of the pixel ama pixel pattern inay ku ogaadaan si ay markaa u soo bandhigaan farta lagu qorayo xarafkaas farta oo noqonayo ma Georgia ma Arial ma Fadana ma Calabria iyo wixii la mid ah ila soco ama waxay noqonaysaa san mid loo yaqaano fontiga la isticmaalayo baaxadda ay qaadanayso masawirka baaxadda ay ka qaadanayso shaashada waxaas oo dhan waxa lagu cabiraa waa pixels waxaana lagu soo gudbiyaa waa binary ila soco codoo kale codka xagoo ka yimid isdii kartaa computerku wuxuu soo saaraa cod kaasoo markaa u fasiranayo binary numbers kaas waxay isku bedelayaan electric signal waxa uu ka yimid physicsku waxay ka timid oo electricgan keentay waxay ka timid waa 0 iyo 1 iyo eber iyo 1 halkaas ka timid ila soco electric signal kaas marka waxa la siinayaa in sameecadihii qaadaya codka baahinayay inay dareemaan wax yaro vibration girgiriir kaas oo markaa inta ku dhaca pressure yar qaata dhagta bini'aadanka ku dhaca markaas oo bini'aadanka dhagtiisu waxay u fasiranaysaa dhawaaqay maqashay oo kale ila soco dhagta ay bini'aadanka ayaa u fasirata sida dhawaaqay maqashay ay u fasirato oo noqdo mid ayada dhadhan u leh ama macno u leh way fasira kartaa maxay la maskaxda iyo dhagaha iyo indhaha dhamaan way wada shaqeeyaan waa inta dareemayaasha bini'aadanka ilaahay siiyay kamid yihiin dhaguhiye ila soco marka computerka si oo u shaqeeyo laba shay oo ka kooban yahay waa hardware iyo software hardwareku waa waxyaabaha la taaban karo ee aad gacantaada taaban karto sida keyboardka mouseka shaashada waxaas waxa loo yaqaan hardware kuwaasoo markaa inta la siiyo tilmaamo data u sheegaysa hardwareku waxay qaba lahayd ayaa waxa loo yaqaanaa barnaamij la qoray ee ah softwareka waxa kale loogu wacaa code waa code program software waxaasoo dhan waa isku wada mid
isku ujeeda loola jeedaa isku waxa loo jeedaa software code program waa isku wada mid marka la qorayo software waxa laga yaabaa inay tahay mid aad iyo aad carcarin badan u baahan ee caqabad badan kaaga imaan karto haddaadan aqoon luqadaha taasoo markaa ka kooban in la qoro tilmaamo loo sheegayo mishinka waxa uu qaba lahaa balse wax aan runtii la fahmi karin markii laga hadlayo adduunka hadda caadiga oo dadku aysan fahmi karin machine code-ka dad yara akhri karo scientistayaal ah oo bartay xisaabta hexadecimalka iyo binary-ga xisaabo kale oo la isku daray balse qofka caadiga ma uu akhri karo qofka caadiga wuxuu akhri karaa kaliya waa wixii loo soo gudbiyo lagu soo sameeyay interpret ama lagu soo sameeyay compiling ee markaa loo soo bandhigay marka in la qoro machine code waqti badan ay u baahan tahay barashay u baahan tahay waxay u baahan tahay carcarin badan ama saa u taqaano challenge badan ay u baahan tahay iyo qof ka tagay ee nafta ag dhigay ayaa bara kara machine code iyo sida loo qoro barnaamijyada loo yaqaano low level languages tusaale mouse-kaaga meel waxaad ku siida click mouse-ka mar walba click meel lagu siiyo computer-ku wuxuu u yaqaanaa event waxa dhacay war maxaa dhacay oo leeyahay computer-ku markaas wuxuu fiirinayaa eventiga ama waxyaabihii dhacay inuu markaa oo ka fal celiyo ka jawaabo tusaale oo kale mouse-kaaga qaaday meelaad waxaad ku siida clicktaas sida processor-ka qabtay processor-ku markaas wuxuu yiri click waxaad ku siida meel window ah ama barnaamij furan ee ayaad click ku siiday tusaale oo kale keyboard-kaaga muxuu qabtaa asaguna keyboard-kaaga xaraf markaa ku qorto waxa loo qorayaa si binary ah 0001 8 digit ayuu ka kooban yahay ku ila halkii xaraf processor-ka loo gudbinayaa sida CPU-ga kale wuxuu ku samaynayaa processing ama geedi socod wax la yiraahdo markaas oo computer-ka click meesha ku siida ama xarafka qortaba waa la geedi socodsiinaya keyboard-ka xaraf walba taabata ee ku jira computer-kaaga waxa aqoonaya computer-ka programka ku jira ee marka u og inay tahay event ama wax dhacaya ee laga rabo wax in ay ka soo bidaamaan shaashada computer-ka sida xarafaad qorto kale keyboard-ka xarafka taabato process badan oo maraa wuxuu isku bedelaa binary wuxuu isku bedelaa marka basasa qaada basastaasi waxay geeyaan processor-ku geedi socod ku sameeyaa geedi socodkaas waxa la geeyaa memory-ga ayaa marka kadib operating system-ka u sheegta operating system-ka ka soo bixiya programkii ama barnaamijkii loo baahnaa inuu ka soo bidaamo hadaad word ama excel ama aad qoraysay taxi message oo kale ama notepad oo kale aad taxi ku qorayso kale notepad-ka soo bidaamaysa eedaasu marka haddaan kuu soo koobo hardware iyo software wada shaqayn sokeeye ayaa ka dhaxaysa okay computeradu haddii ay yihiin kuwa physical waa wax la taaban karo soomana oran computeradu waa kuwa aad iyo aad u noqonaya kuwa la taaban karo haday noqoto wiishashkan korayna maalin walba baabuurtan raacayna xataa computer isku bedeleen jibaba lagu xiree waxay noqdeen kuwa saameeya nolosheena caadiga haday noqoto robots ee ah adeegayaal roboodyo ah ee adeegaya ama haday noqoto abab controlaya nalalka gurigeena ku dhagan ee marka aan ka daminayno mobilkeena kuwaas waxa sahal ka dhigay waa softwaradaas waxay ka kooban yihiin waa instructions waa tilmaamo u sheegaya numberskan inay u bedelaan signal electric signal meel aad taabanaysa action baa dhacaya tusaale smartphone-kaaga app kuugu jiray ama app kuugu jira mobilkaaga ayaad waxaad u dirtay in uu ku xirmo wifi-ga router-ka ku siinaya internet-ka kaasoo markaa inta gudbiya signalka internet-ka dhexdiisa dhexmara markaa kadib amar siinaya nalka gurigaaga kuugu jira inuu marna damiyo marna daaro ila soco adduunkii waa tagay physical computeriska IoT wax la yiraahdo internet of things soo batay robotisku xataa waa kamide waa la farayaa adoo ficilka faraha ama mobilkaaga adeegsanaya hadda qofkan oo kale waa qof naafa waaye wuxuu ku fadhiyaa wheelchair ama kursiga naafada waxa adeega u noqday robotkan buugaag u saara meel sare ayuu amar inta faray asagoo adeegsanaya instruction can transmitted to the robot waxa laga adeegsaday waa remote control kan lagu yiri buug hebel ii soo qabo buugii maanafay iyo waxa ii soo qabataa sheeka baralay waa ilaahay amarkiisa waa labadii buug af Soomaaliga ahayd iga dacayrta libax robotiska marka maxay sameeyaan robotka waxa laga maamulaa waa device sida remote control oo kale ah ee loo soo dhex marinayo radio signal kaasoo ah anteeno mawjad ku xiran wireless ah taasoo robotku helayo asagoo marka anteenadiisa ay ku xirmayso signalka soo dhacay kaasoo markaa u fasiranaya wixii la faray electric signalka inuu qabto shaqadii loogu talagalay iyadoo markaa laga shaqaysiinayo motorkiisa iyo marshooyinka oo wato si marna loo wado dhinac tayro leeyahay marna dhinac kale loo wado ama mar gacantiisa kor loo dhaqaajiyo marna hoos loo dhigo marka waxa isweydiin kartaa dunidan daalacdo deegaanada digitalka degtay computeradii waa bateen ababkii waa bateen la qorayay how much code marka imise code ayuu ku qoran yahay ayaa isweydiin kartaa softwarada caanka ama waxyaabaha maan walba isticmaalno
baaxadda uu leeyahay programka waxaa lagu cabiraa inta line of code uu ka kooban yahay marka meeqa line of code uu ka kooban yahay haddaa isweydiido hadda tusaale oo kale barnaamijyada aad caanka u ah ama softwarada aad caanka u ah waxaa kamid ah ababka aan adeegsano kaba soo qaad abka hurbad wuxuu ka kooban yahay in ka badan 10,000 oo line of code maxaa tahay waa ku tusi doonaa NASA Space Shuttle ama dayax gacmeedka NASA ay leedahay ilaa iyo 400,000 oo code ayuu ka kooban yahay kombiyuutarka ku xiranay Boeing 787 Dreamliner diyaaradda loo yaqaano waxay ka kooban tahay 6.5 million lines of code ayay ka kooban tahay kombiyuutarka ka dhaqaajisiinaya diyaaraddaas Firefox web browser ama Chrome web browser ta u taqaanba 10 milyan oo line of code ka kooban yihiin 9.7 toban ba iska round up Microsoft Office 2021 2019 2013 2016 waa isku wada mid 45 milyan oo line of code ay ka kooban yihiin Windows 10 meeqa ka kooban yahay ma taqaanaa Google ku qorbal how many lines of code Windows 10 bal ku qor waa 50 million lines of code ayuu ka kooban yahay Windows 10 Google wama adraaka Google 2 bilyan oo lines of code ayuu ka kooban yahay website-ka Google maxaa yeelay database-kii dunida wax soo baaraysay search engine-kii ugu awoodda badnaa weeye waa 2 million lines of code ila soco dunida daalacdo deegaana digital degtay waliba waxay weydiin kartaa waa maxay lines of code balan tagno google.co.uk ama google.com tay doonto ha noqoto google.com inta tagto right click ku sii meel kamid ee waxa tiraahdaa view page source lines of code ka kooban yahay fiiri waa kana code-ki doc type ku HTML website walba ayaa wuxuu ku dhisan yahay HTML line ka koowaad waa 1 intee line of code ka kooban yahay intani waa inta aragto ما خفي أعظم أنت كم وقتية أنت قرصون بدن هذا 210 line of code على رحيل لكن أنت أنا ويب سايت ككلية database كيس أما باك عندي ميقو ككوبينها مرك حكتوها يا ميقو ككوبنتها تردي كبضت لما سو كوبي كرو إلا إيو لما بليون أنت هو يجري واسدة هذا الكود جانه أوكي برنامج كان هذا وحل إلى هذا برنامج كان هذا أرتينا كفرا وحلو يقانا كود إديتر كان فيري هذا HTML هذا سنيبت سوقع توكله سنيبت محل هذا HTML waa maxay koorsad ana lagu bartaa kugu diyaara madasha hurbad.com hadaa rabto ina barato sida luqadda uu ku dhisan yahay website walba hadaa rabto ina barato HTML baro libax ama libaxad lines of code kan fiiri hada snippet kan yar kan soo qaatay kow ilaa iyo 11 ku kooban yahay waa code yar waay marka fiiri lines of code marka la qorayo barnaamijka lines of code kiisa halkaas kugu soo qoraa luqadda ay tahan halkaan ku soo qoraa waa marka adeegsanayso code editor sida Sublime Text iyo kale waxaan rajaynayaa inaad fahamto lines of code marka hadaan intaan line qoro wuxuu rabo ha noqday inta iraado ilaa iyo intaasoo kun ha socdo 10,000 oo line of code ayuu ka kooban yahay abka hurbad waaniga ku soo iri ila soco website walba booqata intaasoo line of code ka kooban yahay lines of code inay ku sameeyaan raba الذوق ددن inay ku sameeyaan raba libax ama libaxad modern computers sidaas u shaqeeyaan hadaad fahamtay lines of code program code software waa isku wada mid isku waxa loo jeedaa inta kaliya hadaa kala tagta cashirkan waxa tahay qof wax ka faa'iiday waxa rajaynayaa inaad ka heshay hadaad ka heshay muuqaalkan fadlan falanqee fikirkaaga waa noo muhiim nafaduuli ama nafaaniyo ee hoos ku dhiibo hadaan dhacda kaaga dhigana na dhaliil ama na dhiirageli dhambaal hoos dhig hadaan racda ku xasuusiyana rukumo rugta hurbad riix gambaleelka wax walba lagu soo ridasay kugu soo rucleeyaan mahadsanid ee laga wada reminder ayaa ku soo dhacay rucleyntu waa intaa xalqadan hadaad ka heshay waa sida TT ku tixnaaw barnaamijka waa barnaamij jimcaale ah wuxuu baaqday dhowr usbuuc haddase dib uu hawada ugu soo laabtay mahadsanid mudane ama marwo waa ku salaamaya meel walba aad joogto hurbad waa madal waxbarasho waxayna bixidaa laba adeeg ee kala ah hal mar bixi waligaana baro iyo adeega kale ah wax yar bixi wax walbana hel waka ila soco waa membership iyo one time purchase mahadsanid mudane ama marwo waani adiga iyo barnaamij kale